الحمد لله ثم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى أين مهدنينا mahadoo dhan allaha u sugnaata subxaanahu watacaala alii noo suurtogeliy mowduucan. hadda walaalayaal, mowduuca aan rabo maanta inaan ka hadlo oon rabo inaan idinla wadaaga waa mowduuc run ahaantii aada iyo aada u qiimo badan. maxaad igu taqaaneen anigi mowduuc wanaagsan oo isleeyahay dadka faa-iidooyin fara badan ayay ka helaya ayaan idin soo xulaa markasta oon idin soo qabtaa. walaalayaal, taageeradiina iyo wanaagiina aada iyo aad baan idinkaga mahad celinayaa. midda kaleeto walaalayaal, intaad adduunkan joogtid waa inaad ka fiirsataa waxyaalaha baraha bulshada maanta ku jirna. dadkoo dhan maanta baraha bulshada loo badan yahay. baraha bulshadaas waxaa arkaysaa waxyaalo badan ayaad ku arkaysaa. waxyaalo badanaa la faafinaya oo share lagu sameynaya. waxyaalo badanaa qofka laga yaaba inuu like saara. ka fiirsa waxyaalaha aad shareka ku sameynaysid. ka fiirsa waxyaalaha aad maxay aheeday like aad saaraysid. wax xun ama video xun oo adduun iyo aakhiraba aadan faa-iido ka helaynin dhib mooyaane haddaad like saartid ama share aad ku samaysid, maalinka yowmal qiyaamo walaalayaal way kaaga horeysaa. calimat nafsun maa qadamat wa akharat ayuu leeya ilaahi subxaana wa tacaala. nafi waxay ogaanaysaa waxay horumarsatay iyo waxay dib u dhigatayba. maalinka yowmal qiyaamo markii la tago walaalayaal waxaad arkaysaa qof, ama qabrigii markaad tagtidba wuxuu arkayaa qofkii camalkiisii uu soo sameeyey intuu adduunku joogay, ama shar ha ahaada ama kheyr ha ahaada meeshuu ku arkaya. wuxuu kaloo arkayaa camal kale uu isaga soo shaqaysanin. camalkaada waa garanaysaa, camalka adiga aada soo shaqaysanin waad garanaysaa. markaasaa addoonka ilaahay ayuu weydiin wuxuu leey ilaahayow kan waaba gartee kanna maxaa xaguu iga yimid? camalkan wanaagsan oo aniga aan soo shaqaysan xaguu iga yimid? markaasaa ilaahay wuxuu leeyahay adiga si toos umaadan soo sameynin, laakiin sabab ayaad u ahayd. kheyr ayaa sheegtay, dadkii aada u sheegtay kheyrkii ayaa ku camal falay. camalfalkaas ay ku camal faleen adiga ajraad ku leedahay. kheyr ayaad dhegaysatay, waad faafisay. videoga oo kale aad heshay ama videoga kale oo wanaagsan, qof kheyr ka hadlaya ayaad aragtay, waad faafisay. markaad faafisay qofkaas uu gaaray oo ku camal falay, adigaan faafinaya ajraad ku leedahay. ninkii oo videoga soo duubina isagan ajrow ku leeyahay. tusaaleya videogan hadda aniga aan duubay kaba soo qaad, waad faafisay, ilaahay ajar iyo xasanaad allah naga sii dhammaantayada. waad faafisay. markaad faafisay qof kale ayaa ku camal falay. qofkaas ku camal falay adigii faafiyey ajaraad ku leedahay. anigana biidni illaahi ilbaari alxamdulilah ilaahay ayaan subxaana wa tacaala ka baryaynaa dhammaantayada. anigan ajar baan ku leeyahay ilaahay idinkiisa. video xun ayaad daawatay, waa faafisay, qof kale ayaa ku camal falay. qofkaas ku camal falay ajar macnaha waxaa laga siinayaa dembigii qofkaas ku camal falay dembigiisuu leeyahay. qofkii soo gaarsiina oo sheer kusoo sameynay asigana qeyb uu ku leeyahay, dembigaas wula wadaagayaa. qofkii videoga iska lahay oo soo duwina uu ka imaadeen marka horena isagana dembiyaa loo qoray. u fiirsa, marka aakharo markaad tagtid camal badan oo adiga gadaashaa la soo sameeyey oo adiga lagugu soo qoraa jir doona. kadibna qofku markaas wuxuu leey ilaahay ani kan aan soo shaqaysan iiga fogeey. markaas waxaa leey lagaama fogeenay, adiga iskale waa lagugu soo dirqina, waa lagugu soo maxay aheeday, waa lagugu soo riixayaa. adigana ma sameynin oo adduunka intaad joogtid ma soo sameynin. aakharo markaad tagtay ayaa gadaal damba lagaaga keenay. camal kasta aad soo sameynaysid
oo inta adduunyada joogta oo aakhira joogta oo laakiin adduunyada lagaaga soo xawilaya wixii xumaan aad soo samaysay iyo wixii wanaag aad soo samaysay oo yani sabab aad u ahayd u fiirsa marka ka fiirsa waxaad faafinaysa like haddaan saartina video xuna like saaraysaa video xuna lacala aan like saariba macnaheedu maxay tahay xumaanta ku sii soco way xumaanta ku sii soco suulka maxaa mataqaan walaalayaal suulkan kor u taagan ciyaar ma aha malaynin inuu cirku u fiirinayo ama shar ayuu cirku u fiirin ama khayr uu cirku u fiirin waxaad leedahay ku sii soco wanaaga aad leedahay ku sii soco taageero ya khayrka sii badi ama waxaad leedahay xumaanta sii badi ku sii soco laa ilaaha illa allah walaalayaal wallahi billahi aakhir markii la tago waxyaalo badan qofku waa iska oyni wallahi wuxuu oynayaa waxay tahay wax adiga aadan soo samaynin oo waxba aadan ka ogeyn dusha hadii laga saar karo walaalayaal oo lagu dhahay dambigan adiga iska leh man soo samaynin laakiin sababaad u leeyahay ilaahay hana cafi subhanahu wa ta'ala ilaahay subhanahu wa ta'ala quraanka wuxuu leeyahay وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا إلهي وحلي ورد دمرك وناكل الرقم أي إلهي سبحانه وتعالى haddii aad ku aragtaan shay aad ka hataan waxyaalo badan oo khayr ayuu ilaahay idinka siin ayuu leeyahay hal shay aad ku aragta xaaskaada waadna ka hatay waadna dhibsatay ilaahay wuxuu leeyahay halka shay ha fiirin waxyaalo badan ayaa laga yaabaa inuu ilaahay subxaanahu wa ta'ala kaasi oo khayr ah hada walaalayaal mawduuca aan raba maantay وموضوع رؤانتي آدي مهم خلاف الزوجية خلافك قريها ما أنت بربري أو رجالي ويفرب بدين هل الشيء ينقص قادني هل كشيء محويه ما أنت وحاركيسا جبرير أو قروح السن أو عاو أنت اللي جرس الصبح لا صفراي جبر لو عنق إيده ولا تلا صفراي جبر له عنق أو قبت أو قعمات جيديسا ayaad arkaysa ayadoo la soo furay maxaa dhacay war qoyskan burburay waa maxay ilaahay wuxuu kana badan yahay malaha qoys burburay mootay guurka ilaahay aad buu u jecel yahay furiinkan ilaahay wuu naciib subhanahu wa ta'ala hada walaalayaal nadaafada gabadha inay ninkeeda isku qurxiso ninkana naagtiisa inuu isku qurxiyayo qoyskaas inuu dhismo ma ka qayb qaadanaysaa nadaafad xumadana qoyska inuu burbur ma ka qayb qaadanaysaa arrintaasaan rabaa maanta inaan ka hadlo cajiib gabar baa u timid cumar bin khataab radiyallahu canhu wa ardaah maxay ku tiri mataqaana walaalayaal cumarow waxay tiri ninkeyga ha layga furo in layga furan rabaa dacwaanka ay ninkeyga dacwaanka ahay u fiirsa walaalayaal furiinka ceeb ma aha cajiib furiinka ceeb ma aha marar qaar oo xal noqdaa mugtahay laakiin gabadhan waxyaalaha ay furiinka ku dalbanaysa ayaa wax cajiib ah wuu weydiiyey wuxuu yidhi maxaase wax u jiraan furiinka maxaa keenuu yidhi markaasa waxay tiri ninkeyga nadaafad xumaan ku nacay kulaha subxaana allah waxay leedahay walaalayaal ninkeyga kulaha nadaafad xuma tii nadaafadii ayuu ka dhintay waxay leedahay ninkeyga yacni xagga nadaafadda kuma fiicna in layga furan raba marka way dhibsatay ninkii ayuu u yiri markuu arkiba gabadha waxay sheegaysaa runba bilicdiis iyo aragtidiisaba ninka aad ka cararaysa aad ka didaysa waxyaab Umar bin Khattab markaas wuxuu yiri ninka cijiyaha ku baxay timihii dharkiisa wajigiisa ma fiirin kartid Umar wuu xagu u geey wuxuu yiri warheed orada isoo hagaajiyo war orada isoo hagaajiyo ana ceebayse orad boorka iska soo jaf
yaa inaa lillahi qof weyn oo xagga nadaafadda loo tilmaamo waa ceeb mugta walaalayaal wuxuu yidhi war orodoo cijiyaha iska soo jaro timaha iska soo hagaajiyo dharkan iska soo hagaajiyo war orod soo hagaaji jir naf fadahaba uma rajaca ilay walaalayaal wuu baxay kadibna wuu kusoo laabtay cumar ninkiiyo haddee sidii hore aan ahayn cijiyaha inta laiska soo jaray madaxa laiska soo feerayey yaa dhar fiican meeshaan lasoo xirtay bahal yaa lasoo udgiyey barfuum meeshaan laisku soo udgiyey walaalayaal ayuu soo laabtay ninkii markaasaa wuxuu ku yidhi cumar bin khataab hadda makaa farow yiri markaas hadda wuxuu yidhi haye ka waran fureenka ma sii wadaa markaas waxay tiri may waa ka noqday tiri arrintii hore walaalayaal naagtii oo hadda dhow caraysneed oo lahayd ninkayga dacwaanka ah layga furo dhehaysay way ka noqotay waxay tiri cumarow iska dhaaf ninkayga waan jeclahay furiina diyaar uma ihi saasaan ku qaadanaya dhahda walaalayaal sidii ay ku qaadatay naagtan fiiri gabadhan maxaa isbedelay war maxaa isbedelay culamo allahi maxaa isbedelay hadda dhow gabadhan way gubanaysay way caraysneed furiinay diyaar u ahayd qoyskan inay burburisay rabtay wax yar kadibna walaalayaal gabadhii way ka noqotay waxay tiri inaan qoyskeeda gurigeyga aan burburiy diyaar u mihi arrin yar ayaa u fiirsay arrimaha yar marar qaar walaalayaal wax aadan islahayn qoyska ayaa burburinaya ayaa qoyska burburin kara nadaafad xumida waxyaalaha qoyska burburiya ayay ka mid tahay markaasaa cumar wuxuu ku yidhi haakadaa fasnacu lahuna war dumarka sidaas u sameeyo yidhi raggiga waana ceebayseen war boorka hala iska jafa boorka waa maxay nadaafad xumadan yaa ma gabar intaa kusoo dacweysay ee ku leedahay ninkayga nadaafad xumaan waxaa la jira aan ku nacbanahay halayga furo gabdhahan sida oo kale ayagana way ku dhacdaa oo way ka imaadaa xaggooda walaalayaal haddana qofka kuma dhahay mugtahay qofka kuma dhahay gabadha kuma dhahaysa ninkana kuma dhahay niyo nadaafad xumaa tahay xergeyga isii isku dhahaysa maa mugtahay nadaafad xumaan kugu arkay xergeyga isii may ha sugin taas gabadha oo kale ninkan waxay dhibsata ma sheegaysa waxyaalo yara iska jira markaasaa waxyaalo kale ku marsiisani haddii uu ishagaajina arrintii inay isbedeshaaba laga yaabaa ama gabadha ninkan wuxuu ka tabanaya inuu afka uu ka sheegi karnaa laga yaaba mugtahay uu wax kale uu ku marsiista naagtan yaqaayo jiniyaasheeda iska nac mugtahay aan iska leey maxaad u furaysaa may waaba niyow shaydhaamahaygaa nacaybo oo iska leey mugtahay arrimo kala jira shaydhaamo meesha ma jiree shaydhaamo kuma nacsin waxyaalo waxaa jira oo adiga aadan hadda afka uu qof ka sheegi karin oo loo baahan yahay labada qof inay iska saxaan hadda fiir gabadhan ninkeeda ma dhihin oo kuma dhihin niyow nadaafad xumaan kugu nacay ifur ma dhihin u fiirsa saasaa loo baahnay laakiin ma dhehaysa maxaa yeelay in lagu sheega macnaha waa afka ma soo maraysa mugtahay waa arrin laga xishoodo cumar intay u timid waxay tiri ninkayga arrintaasaan ku nacay ninkiina markuu is hagaajiyey u fiirsa markuu is hagaajiyey gabadhii waa ka noqotay isla markii cumar markaasa wuxuu yidhi radia allahu canhu wa ardaah haakadaa fasnacu war sidaas u sameeya inahunna yuxbibna an yatazayanuu lahunna kamaa tuxibuuna an yatazayanna lakum waxay jecel yihiin sidii idinkaba aada jeceshihiin inay idinka arkaan iyagana ay jecel yihiin inay idinka arkaan waa saas baahida labada dhinac waa jirtaa mogtahay sida idinkaba aad u jeceshihiin inay isku kiin qurxiyaan ay iyagana u jecel yihiin inaad isku qurxisaan saas yiri cumar bin khataab cabdullaahi bin cabbaas radiallahu canhu wa ardaah ayaa mar kastaba uu isqurxin jiray saxaabigaas saxaabi jaliil ayuu ahaa aad buu isku qurxin jiray nadaafadiisa maasha allah ahayd nin quruxsan oo heebad lehna uu ahay mugta walaalayaal markaasaa saxaabada ay arkay waxaa la yidhi niyow aad baad mar kastaba nadaafadda ugu dadaashaa oo isqurxisaan
xaaskaada macnaha markaasa wuxuu yidhi oo xaaskaada waa isku qurxistaa ay dhaheen mogtahay markaasa wuxuu yidhi sida ayadaba ay ugu dadaalaysa inay isku qurxisa maxaa ii diido yidhi anigana inaan isku qurxiyo waa saas sheekada dhinaca mogtahay hal shay hal dhinac inay ka socoto maaha yaa ciyaarta inay hal dhinac ka socoto maaha walaalayaal labada dhinac waa inay ka socdaan labada dhinac waa isu baahan yihiin gabadhan waxyaalo fara badanaa jira ay ninkan ay ka dhibsanaysa oo ay dhibsanaysa ninkan waxyaalo badanaa jira inuu gabadhi ka dhibsanayo marka waxaa loo baahan yahay marka tawaaduc in laisu dulqaata oo waxyaalaha yaryarka khilaafu zawjiya oo waxyaalaha yarka ah oo dad badan ay isdhehaynin qofka xataa uusan ku fikrinin wax dhib inaysan u keenaynin ayaa marar qaar laga yaabaa inay dhib keenaan marka waxyaalaha yaryarka ah aan iska saxan allah idin barakeeyo xilliga nebiga sala allahu calayhi wasalam haweeney ayaa ayadan sida oo kaleeta nebiga u timid markaasaa waxay tiri rasuulka ilaahayow ninkeyga waa nacay haliga furo hedeedkan waa nacay haliga furo nin gaaban uu ahaayo moogtahay walaalayaal waxyaalo qaarna yacni waxyaalo qaarna waa wax ilaahay subxaana wa tacaala uu kuu abuuray oo adiga maadan kasbanin oo maadan keensanin waxna waa wax adiga aad samayn kartid oo iska bedel kartid waxna waa wax ilaahay uu kuu dhaliyo iskama bedel kartid waxyaalaha marka adiga aad iska bedel kartid wax dhibaato ma laha waa bedel karta laakiin wixii ilaahay uu kuu abuuray haddii ma bedel karta markaas taas oo kale gabadhan waxay leedahay gaabni ay ku nacday ninkeeda ogow marka hore ay guursanaysna way jecleedahay ma ogi yacni marka hore ma si kale u aragta maxaa ka aqaanaa marka hore ay guursanaysa ninka saasay ku jeclaatay mar dambe ilaahay amarkiisa guriga daaqadiisa waxay ka aragtay ninkeedoo nimin la socdo oo meel buurna ka daadegaayo markaase waxay aragtay ninkeedoo niminka ee ugu gaabany oo dhulka lala galay ninkeeda waxay aragtay ooba raggii aan ka dhex muuqaninba waa lala tagay ninkii waa lala tagay hoosaa lala galay ninkii nimin dhaadheer la socdaa mogtahay bal maxaa u geenaya niminka dhaadheerka isaga isma dhehin naagtaada daaqad kaa fiirsanaysa mogtahay naagtaada daaqad kaa fiirsanaysa isma dhehin miskiinka laakiin daaqadaa laga fiirsanaya show meel kalaa laga fiirsanaya ninkeeda waxay aragtay dhulka lala galo oo waa gaabanya mogtahay hoos isagoo kan nukaasa marka rasuulka intuu waxay tiri kan waa iga soo booday waxaa laga fasaxa iga fur rasuulka ilaahay rasuulka alla waa iga fur kan markaasaa wuxuu yidhi maxaa dhacay waxay tiri ninkan waxay tiri waa gaabnidiisa waa qurjud xun yahay ragga meesha ugu dhacaa markaan arkay ee dhahday waa markaasaa nacay iga fur war maajo may waa iga soo dhamaatay dhahday ninkii u yiri markaas wuxuu yiri nabiga sallallahu calayhi wasallam ayada waxaa lagu yiri ninkan qarashkiisa ma u celinaysaa ha ku furee diyaar gabadha nina waxaa la yiri nin meel u cad meel ka madow macnaha nin meel u cad meel ka madow maa la dhihi jiray maamaha noocaas oo kala jirta marka gabadhan waxaaba ka soo booday ninkan gaamnidiisaaba dhibsatay waxay tiri war xoolo maana wax kasta diyaaran qarashkiisa oo dhan waa u celini mar leh hay furo nabiga ninkii u yiri markaas wuxuu yiri war heeda qarashkaada ka qaada iska furo yiri sidii uu ku furay ninkii walaalayaal marka haddaba waxyaalo yar waxaa jira walaalayaal oo qofka oo iska bedel kara qoysaskana maxay ahayd dhibaato u keen kara marka halkaas intaas ayaan maxay ahayd in la jeclaystay inaan idinla wadaaga في فيديو وحيقة أنت كل ما نهدو إله يراد هذا وبالله توفيق وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم هلا فافي لايك تنهنيجي لوين إن شاء الله باركم الله فيكم.